السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك دمانتين meel kastoo dunida guudkeeda ka joogtaan iyo daafaha caalamka. Waxaan inoo hayaa maanta sheekadii qaybtii ugu dambeysay sheekadii Amal Harqaanley. Qaybtii saddexaad waxay inoo joogtay iyadoo Amal soo gashay xafiiska Sodogeed aragtayna Sodogeed oo miiska madaxa ku haya dhiig badan oo ka qulqulay naxdintii ay naxday darteed iyo xaaladii aragtay darteed waxay isku dayday inay qayliso balse nasiib darro ma aysan jirin goobta ay joogto cid kula sugnayd oo gacan u fidin karta ama caawin karta. Sidaas darteed wixii ugu dhawaay niyadeeda ku soo dhacay waqtigaas waxay ahayd inay ugu yeedho gargaarka degdegga ah oo ay dalbato ambulance oo si loo ogaado xaaladan. Waqtigaas iyadu war uma yahayn Sodogeed inuu nool yahay iyo inuu dhintay midna waayo maysan hubinin balse waxa kaliya meeshaas inay ka qabato ay la soo gudboonaatay ay la qurux badnaatay waxay noqotay inay ugu yeedho gargaarka degdegga ah. Waxay markiiba dalbatay ambulance bay dalbatay ambulance markii ay dalbatay ambulance ku yimiday sidoo kale waxaa isna goobta isla markiiba yimiday booliiska inta badan ka warqabtaan xaalad kastoo dhacday inuu yahay waxa ugu horeeyay meeshaas imaada. Markuu booliisku yimaaday odaygina meesha laga qaaday ee loo qaaday isbitaal isagoo markaas loo gaaday inuu mid yahay. Booliiska isla markiiba waxay bilaabeen baaritaankooda. Goobta waxaa laga helay baaskoolad, waxaa laga helay faylashii uu odaygu isticmaalayay inkastoo inta badan alaabooyinka badankooda dhiigii ku baaba'ay oo uu halyeeyay laakiin haddana way gurteen wixii alaab caddayn u arkayna meesha ku hayeen. Balse marka loo eego cidda dambiga geysatay qofka kaliya ee goobta joogay ee ugu dambeyn iyo ugu horeynba dambigaas dhakada ka saaran yahay waxay Amal waa la kaxeeyay waxaana la geeyay saldhigga booliiska inkastoo ay jecleyd iyadu inay raacdo Sodogeeda oo ay soo ogaato goobta la geeyay iyo halka uu ku dambeeyay inkastoo ay ogtahay waqtigan inuu meyd yahay oo aanu noolayn laakiin haddana duruufta ka hor istaagtay waxay tahay iyadii oo la kaxeeyay oo saldhigga la geeyay maadaama ay tahay qofka kaliya dambiga loo haysto. Markii la geeyay saldhigga isla markiiba hore waxaa laga bilaabay baaritaanka isla markii saldhigga la geeyay Amal waxa ogaaday xaaladeeda iyo dhibaatada taagan ninay odayga Sodogeeda saaxiib dhow ahaayeen kuna shaqo lahaa qaybaha sharciga oo ka shaqayn jiray qaybahaas. Markii uu xaaladda ogaaday aad buu la yaabay markuu xataa ogaaday inay Amal tahay qofka loo haysto dambiga dhacay aad buu uga sii yaabay laakiin wuxuu markiiba u arkay inay waajib tahay inuu ogaado odaygeedu. Isla markiiba wuxuu jeestay dhankii guriga wuxuuna u tegay ninkii Raami oo ahaa Amal odaygeeda. Markuu u tegay xaaladii uga sheekeeyay aad buu uga xumaaday Raami waxa dhacay iyo waayista aad buu uga murugooday aabihii dhimashadiisa. Wuxuu kaloo ka murugooday xaaskiisa oo ilmihiisa caloosha ku sida inay maanta saldhig ugu jirto dambiga dhacay. Inkastoo isagu rumaysnaa uu ku kalsoonaa Amal inaanay waxaa samaynin balse wuxuu ninkii u sheegay haddii Amal ay dambigan geysatay sharcigu wuxuu jiro inaanu ka hor istaagi doonin balse uu ka codsanayo Amal inaan lagu xidhin goobta lagu xareeyo dadka dambiilayaasha ah in loo sameeyo qol gaar ah intuu kasoo baxayo shar iyo khayr waxa ay geysatay. Amal wuxuu kaloo codsaday in loo sameeyo baadhe khaas ah kaasoo samayn kara dambigeeda soo saari kara dambiilayaanteedana soo saari kara maadaama sida la ogyahay waqtigaas uu jiray keliyata oo meesha ka shaqaynayay dambi baadhe keliyata soo saaray qofkan dambigiisa qofkana farta ku fiiqaya isaguna uu ku dhareegsanaa oo wax badan ka yaqaanay dadka dambi baadhayaasha sida u shaqeeyaan. Sidii ayaa la sameeyay codsigiina waa laga aqbalay odaygii markuu xafiiskii tegay ee uu la kulmay nimankii ugu sareeyay booliiska ee uu codsigiisa hordhigay waa loo ogolaaday balse waqtigaas ma uusan jirin shaqada uu doonayo qofka shaqeeya. Waxaa loo tilmaamay inuu jiro nin halkan ka shaqayn jiray muddo hore ninkaas oo ahaa baadhe aad u fiican balse dambi uu geystay iyo khalad uu galay dartii shaqadan iyadoo ciqaab looga dhigay laga saaro la geeyay tuulo. Odayga wuxuu tuuladii ugu kicitay inuu soo helo ninkii raadin badan kadib wuxuu soo helay ninkii wuxuuna u sheegay haddii uu kiiskaas ka soo baxo inuu shaqadiisii dib u heli karo sidii baa ninkii loogu keenay Amal iyada oo daashay waqtigaas oo aad isku dhiibtay oo in badan oo la wareystay qof kasta oo yimaada iyada farta ku fiiqayo oo ku lahaa dambiila tahay dambiga sidaad u geysatay iyo maxaa kuu kalifay su'aalo noocaas oo keliyata oo iyada xanaf ku ah niyadeedana dhaawacay in badan oo keliyata la weydiin jiray. Markuu ninkan u yimiday Amal maalinta Amal waxay ahayd maalin ay aad u niyad jabsan tahay marba kastana waxay ka fikiraysay keliyata inay u sii dhawaanayso uun dhimashadeedii iyo inay dunidan ka faaruqi doonto waayo rajo kamay arkaynin inay cidi rumaysan doonto waxay ku hadlayso ama isdifaacaysa inuu mid runa yahay. Maalintaas markuu ninka baadhaha cusub u yimiday ee aragtay weji cusub oo kale u yimaaday
waxay ka filaysay keliya in sidii kuwii hore ay ula dhaqmeen ama ay wareysteen inuu wareysan doono laakiin markii uu u sheegay inay isdejiso oo uu halkan iyada u joogo oo uu rabo inuu soo saaro dembi la-aanteeda iyo dembigeeda labadaba iyo dadiilo ayaa amal soo gashay way faraxday hawo cusub baa u bilaamatay maalintaas wuxuu ku yidhi waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aalahaas waxay la xidhiidhi doonaan kiiska dhacay halkuu ka dhacay siduu u dhacay iyo wax kasta laakiin waxaa jiri doona su-aalo aan adiga kaa wareysan doono su-aalaha waxaan doonayaa inaad adigu igu sheegtid sidaad u ogtahay maadaamaad adu xog ogaal tahay siday waxu jiraan xabidna aan adiga baray markaa way habay tiri amal sidoo kale wuxuu ku yidhi maanta waxaan ku weydiin doonaa oo keliya taal su-aal halkan su-aal markaad iga jawaabtid anigu ku rumaysan doonaa waxaanan u diyaar garoobi doonaa inaan dadka kale danaynaya inaad adigu bilaada dembi tahay inay ogaadaan iyo dadka danaynaya inaad adigu dembi leedahay inay ogaadaan labaduba inay ku qanci doonaan waxa aan soo saari doono insha allah xaqiiqada oo cadna inaan banaanka soo dhigi doono ayaan ku ballan qaadaya buu amal ku yidhi ninkii amal markaas haddana waxay sii qaaday farxad kalaa soo gashay waxay sii qaaday rajo inay leedahay maadaama ay aragtay qof niyadda u dhisaa qof su-aalaha aan ku badinaynin qof aan jabeynin markay aragtay waxayna ku tiri wax kastoo iiga baahan tahay diyaar baan u ahay inaan ka jawaabo wuxuu ku yidhi maanta su-aashan ku weydiinaya waxay tahay amaley su-aashan waxay ku xidhnaan doontaa qaabkaad uga jawaabtid waxay ku xidhnaan doontaa dhammaan broseskaaga oo dhan ama baadhista oo dhan waxaad jaangoyn doonta su-aashaas maxay tahay su-aashu bay ku tiri marka amal wuxuu ku yidhi amaley adigu ma dishay odayga sodogaaga mise maanad waxay ku tiri amal anuu maanan dilin bes buu ku yidhi ma haddaad adigu sidaad u sheegtay bay u dhacaysaa maanta waad iska nasan doontaa beri baanan isku soo laabanay maalintii amal baadhihii sidii buu kaga tegey maalintii labaad buu soo laabtay isagoo buug sitaa oo rikoord sitaa rabo inuu duubo macnaha jawaabaheeda inuu duubo oo uu qoro doonay markii uu yimaaday amal maalintii ee uu salaamay iyadoo faraxsan wejigeeda iyo diilo ka muuqato rajo badan ka muuqato qolkii laga soo bedelay meel fiican oo iyadoo u gaara qol u gaara wax kastay u baahan tahay ka heli karto xataa xaaladeeda caafimaad lala socdo maadaama ay tahay qof ilmo caloosha ku sida maalintii markuu yimaaday wuxuu ku yidhi waxaad iiga sheekaysaa taariikhdaada oo kooban qaabkii aad kusoo gashay reerkan xaaladda halkaad kaga jartid positionkaad u taagan tahay wixii oo dhan amal markaa waxaa uga sheekaysay in iyadu ahayd gabadh yaroo tuulo kusoo kortay kusoo waxbaratay nolosheeda oo dhanna ay tahay hooyadeed midda halkan soo gaarsiisay markay waxbarashadeeda dhamaysatayna ay hooyadeed aad u xanuunsatay markii xanuunka hooyadeed u adkeysan kari weyday ee magaalada timid si ay shaqana uga raadiso hooyadeedna caafimaad ula raadiso balse ay shaqo weyday hooyadeedna xaaladeedu marba ay kasii daraysay ugu dambeyntiina ay shaqo ka heshay caawinta qof iyadu ay abaal badan u hayso darteed inay shaqo uga heshay xafiiska odayga sodogeeda markii xafiiska soo gashay dadaalkeedii iyo aqoonteedii kadib ay ku kasbatay waxyaabo fara badan oo shaqada marba heer ay uga gudbaysay oo marba xil loo dhiibayay oo marba qayb mas-uul looga dhigayay ugu dambeyntii ay cumraan isbarteen barashadii cumraan uu ka codsaday inuu u guuriyo wiilkiisa shuruudna uga dhigay inuu hooyadeed daweeyo oo dhakhtarada ugu fiican uu geyn doono maadaama hooyadeed xaaladeedu ahayd mid aad u liidata una baahnayd qaliin waqtigaas shuruuddaas markii maqashay ee ogaatay in hooyadeed loo badbaadin doono haddii kasoo baxdo way ogolaatay amal waan ogolaaday bay tiri marka waxay tiri amal markii aan ogolaaday hooyaday qalinkeeda kadib waxaa noo bilaabmay aan howlgallo guurka aniga iyo raami oo ah wiilka cumraan sidii ayaan isku goosanay aniga iyaguna sidii baan ilaa halka ku wada noolahay anigu waxaan shirkada ka ahaabay tiri gudoomiyaha ugu sareeya cumraan buu ahaa anina waxaan ahaa xigeenka saas ayaan ku wada shaqayn jiray marka wuxuu weydiiyey su-aal kaloo ah maalintan xafiiska imaanayseen ujeedada u yimaadeen waxaad ka qabanayseen waxyaaba noocaas waxay ku tiri xafiiska cumraan wuxuu yimaadaa sanadkii wuu yimaadaa waqtiyada badankooda laakiin waxay tiri sanadku markuu dhamaado wuxuu sameyn jiray xisaab xid iyo indhayn iyo shaqada wixii soo kordhay wixii hoos u dhacay aduu si guud buu indhayn jiray shirkadda markaa wuxuu kusoo beegi jiray hawsha uu qabanayo waqti ay shaqaalaha dhan fasax yihiin oo sanadku markuu dhamaado ah kadib maalinta waanse soo raacnay inta badan anigii isagaa wadeymin jirnay anigii isagoo laba xafiis baanu kala degnayno isku dhow halkaasaanu deedna hawsha ka wada jirnay kadibna waa iska bixi jirna maalinta markan dhameyno shaqada marka wuxuu ku yidhi su-aal kalu weydiiyey wuxuu ku yidhi markaad xafiiska timaadeen ma isku mar baad timaadeen waad soo kala horeysay waxay tiri maya isku mar baan nimid
laakiin anigu waxaan kasoo galay albaabka shaqaalaha isaguna wuxuu kasoo galay albaab kale. Wuxuu ku yidhi albaabka isagu kasoo galo aad sheegayso mid ka duwan ka shaqaaluhu kasoo galaan baa haa bay ku tiri. Waxaa jira albaab xafiiskiisa u furan oo isaga kaliya kasoo galo, maadaama haddii albaabka shaqaalaha uu kasoo galo ay noqonayso inuu shaqaalaha dhan soo dhex maro oo la ogaaday inuu xafiiska joogo. Isagu wuxuu leeyahay albaab u gaara oo marka uu gaarigiisa kasoo dego uu kasoo galo alaabtuna xafiiskiisa u keenay. Okay buu ku yidhi markii aad xafiiska timid isaguna uu soo galay adna aad soo gashay ma jirin cid adiga iyo isaga aan ahayn oo xafiiska jooga maysan jirin ayay tiri labadeedu kaliya ahayn. Markii aad xafiiska soo gasheen adigoo albaabka kasoo galaysay ma jirtay cid shaqaalaha kamid ah ama cid kale oo uga shakisan tahay arrimahaas oo xafiiska deyrkiisa joogtay ama banaankiisa joogtay. Waxay tiri saan kuu sheegay shaqaaluhu fasax bay ahaayeen kaliya ta shaqaalaha waxaa joogay nimanka deyrka ilaaliya. Sidoo kale waxaan xafiiska deyrka waxaan ku dhex arkay odaygii aniga shaqada i keenay ee isaga dartii aan shaqadan ku helay oo ah ninka bustaanka ilaaliya beerta. Ninkaas ayaa joogay markii aan weydiiyey oday weyn weeyaan bay tiri markaa odaygaas. Markii aan weydiiyey sababta meeshan keentana wuxuu ii sheegay in odaygu ka codsaday inuu gaari u maydho saas darteedna uu meeshan joogo. Aniga markaa waxa shidaa kama soo qaadin waan iska soo galay xafiiska bay tiri. Sidoo kalena kama filaayo odaygaas inuu dhibaato geysanay waayo oday miskiin weeyaan. Odaygii anigu aan dartii xafiiskan kusoo galay reerkan weeyaan aadna abaal aan ugu hayo markaa kama shakin karo bay tiri. Wuxuu ku yidhi waa caadi wax kasta dunida waad ka filan kartaa. Odaygaasna waa la wareysan doonaa buu ku yidhi waxaad ii sheegtaa markii aad xafiiska timid aad xafiiskaaga adigu gashay xafiiskiisa isaga miyaa tagtay. Odayga xafiiskiisa waan tagay bay tiri waxaana u doontay faylan. Markii aan xafiiska ugu galay waxaan arkay isagoo kabadh ugu yaala albaabka laga soo galo xafiiska taagan oo baaskoolad sifaynaya waraaqo iyo alaabna kala habeynaya. Markaa baaskoolada markuu dhigay baan soo qaatay bay tiri anigu baaskooladana waan fiirfiiriyey. Baaskoolada markaa waxaa afka kaga xidhnaa qalab yar baa la socday. Isagii qalabkaasaan ka wareystay baaskooladii waxaas ii sharxay. Wuxuu weydiiyey su'aala baaskoolada miyaad ridi taqaanaa may baan ku yidhi anaa ku baray buu yidhi. Kadib aan faylkayga baan kasoo qaatay waan kasoo baxay sidii baan uga waa sax buu yidhi. Haddaba wuxuu ku yidhi maadaama ay saas tahay sababta faraha looga helay baaskoolada waa maadaama adigu xafiiska ugu gashay baaskooladan aad gacmahaaga saartay sababtaasaa looga helay. Baaskoolada maadaama isagu iska lahaa oo sifaynaya waqtigaas gacanta ku hayayna sababta farhiina looga helay labadiina waa sidaas. Laakiin waxaa jira wax kalaa meesha ku jira qof saddexaad oo dembigan geystay baa jira qofkaasna waa lasoo helayaa iskama soo gudbiri bay tiri maalintii. Kadibna sidiiba uga baxay xafiiskii baadhista uga baxay qolkii baadhista. Markii baadhistii dhamaatay Amal waxay kusoo laabatay qolkeedii halkii bay iska joogtay. Ninkii baadhaha wuxuu codsaday in loo soo qabto odaygaas si uu su'aalo weydiiyo. Odaygaas waa oday casaan waa odaygii markii ugu horeysay Amal ee magaalada timid ee caawin jiray in badan ee arki jiray mar walba hooyadii la ordaysa. Waa odaygii ugu tagay ninka HR-ka qaybta madaxa shaqada iyo shaqaalaha iyo shaqada u soo weydiiyey isaga darteed isaga wajigiisa lagu shaqaaleysiiyey Amal weeyaan. Odaygaas markii la keenay xafiiska intii hore dhan uu waran waayay waxba laakiin ugu dambeyntii markii loo sheegay dambiga Amal loo haysto dambigaas uu qirtay wuxuuna ka sheekeeyey sababta ka dambeysay inuu dilo iyo waxaas oo dhan. Wuxuu yidhi aniga ninkan aana horaan u hayay dhibaato hore ii geysteen isaga iyo reerkiisu. Wuxuu yidhi intii aanay Amalba sheekada soo gelin ee Amalba reerkan kusoo biirin aniga waxaa jirtay gabadhaan dhalay. Gabadhaasaan dhalay oo ahayd gabadhaan aad u jeclaa. Gabadhaas ayuu iga codsaday inaan siiyo wiilkiisa waan ka ogolaaday maadaama anigu aanan wiilkiisa aqoon u lahayn horena aanan u arkin wiilkiisa qaabkiisa iyo wax kasta oo ku saabsan. Gabadhayda habeenkii markii loo qalbeeyey way kasoo carartay maadaama ay ka cabsatay wajigiisa iyo qaabkuu samaysan yahay ayay kasoo carartay. Cararkii ay kasoo carartay reerkii way xanaaqeen isla markiina wiilkii wuxuu bilaabay inuu gabadhaydii furo inkastoo odayga ka codsaday in bal muddo bila waqti la siiyo oo gabadha hore la igu furin laakiin way iga diideen. Gabadhaydiina ceeb bay uga baxday magaalada meel ay ku sugan tahayna ma hayo. Sababtaas ay u kaliftay aniga inaan dilo intaasoo dhanna waxaan raadinayay fursad aan ku dilo laakiin markii aan ogaaday in Amal guursatay wiilkiisii haddana ilmo caloosha ay ugu sido nolol faraxsan ay ku nool yihiin waxaa
murugo fara badan igu beertay xaaladii gabadheeda ku sugnaatay waqtigii la furayay, dhibaatadii soo gaadhay iyo sidaanan u ogeyn maanta waxay ku sugan tahay gabadhaydu. Waxaanan aaminsanaa heerka ay gabadheedu taagan tahay maanta inay iyagu ka mas'uul yihiin oo ay dhibaatadaas oo dhan u geysteen qoyskayga. Sababtaas ayaan ugu imid ama ninkeenan u dilo. Sabab markii aan anigu soo galayay kumaan talagalsanayn inaan ku dilo baaskoolad iyo wax noocaas ah. Mindi baan sitay laakiin markaan qolkiisa soo galay ee aan ka soo galay albaabka xafiiska ka soo galo waxaan arkay kabadh furan oo ay baaskoolad dhex taalo. Waad moodaysid in aniga laysi diyaariyey. Bahashii yareed xataa codka ka xidhaysay markaad ridaysid baaskoolada ay ku xidhan tahay. Kadib tii aan anigu isticmaalay sidii baan ku dilay waanaan iska tegay. Haddaan laakiin amal moodayay in dhibaatadana loo qabsan doono iyo dambigan ma aanan geysteen iyadoo ma aanan geysteen amal anigu waxba ima geysan. Waa gabadh miskiin ah, waa gabadh aan jeclahay oo fiican. Dambigiina sidaas baan ku qirtay buu yidhi. Marka dambiga odaygu markuu sidii ku qirtay odaygii baa la xiray. Waxa lagu xukumay xabsi daa'im. Gabadhii amal waa la iska fasaxay inkastoo ay murugo fara badan ku haysay waayitaanka sodogeeda iyo ninkeeda oo isaguna ka murugeysnaa waayitaanka aabihii, laakiin haddana noloshoodii farxad bay ku dhamaysteen. Sidii baana sheekadaas ku dhamaatay. Aad baad u mahadsantihiin. Haddaad halkan ila soo gaadheen waxaan rajeynayay inaan lacag idinku qorin subscribe ii saara, like-tana ha igala bakhaylina. Ramadaan mubaarak dhammaantiinba aad baan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.